fursan uu nagaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka 5 Somali TV magaalada Nairobi waxa haata stuudiyaha ay kula sugan Cabdirashiid Cabdi Jaamac oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee Somaliland oo maalmahan howlo shaqo joog magaalada Nairobi aad iyo aad baad mahadsantahay walaalkii Maxamed iyo 5 Somali TV sida aad igu marti qaadeen barnaamijka Duhursan Cabdirashiid waxa ay inooga warantaa sida ay u dhacday xafladii qalinjibinta ardayda jaamacadda Camuud ee maanta sidaan la socono Maxamed maanta aynu ka daawaninay TV-yada iyo baraha bulshada maanta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ama dooxada Camuud ee duleedka magaalada Boorama waxa ka dhacday qalinjibinta amba qalin bedelashada ardayda dufcadii 9aad inta ay jaamacadda Camuud jirtay jaamacadda Camuud sidaan la socono waxay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn amba warshadaha ugu waaweyn ee ardayda Soomaalidu ka soo baxda jaamacadda Camuud waxay ahayd jaamacaddii ugu horeysay ee Soomaaliland laga hirgeliyo 1997 amba 98 jaamacadda Camuud intaan jaamacad ay noqon waxay ahaan jirtay dugsi sare oo 1950 laga hirgeliyay dooxada Camuud oo jaamacad magaalada Boorama duleedkeeda ku taala waxa ka soo baxay jaamacadda Camuud amba waxaan jeedaa dugsiga sare Camuud saddex madaxweyne oo Soomaaliland madaxweyne la soo noqday Soomaaliland shan madaxweyne yaa soo maray saddex kamid ah jaamacadda waxay ka soo baxeen dugsiga sare Camuud jaamacadda Camuud iyaguna waxa ka soo baxay wasiiro dawladda Soomaaliland ku jira iyo Soomaalida kale meelo badan ka soo shaqeeya marka jaamacadda Camuud waa jaamacad facweyn oo waa mid kamid ah warshadaha ugu waaweyn ee dalka ardayda soo saarta marka anigoo fursadan ka faa'iideysanay maanta waxaan ugu hambaleynayaa ardayda difcadda 9aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Camuud inuu Ilaahay ka dhigo mustaqbalkooda ku guuleysta mustaqbal dheer baa sugaya insha Allah Ilaahay ka hoosto qodbada madaxweyne Muuse Biixi maanta ka horjeediyay xafladda jaamacadda Camuud ka xisbiyahan wadani sidee u aragtay walaalkayow madaxweynaha Somaliland waxa uu ka baxay dugsigii sare Camuudeed saddexdii sano ee u dambeysay xilka hayna waxa uu ka soo qayb galay saddexdii qalin jabineed ee jaamacadda Camuud 2018 2019 iyo maanta waan joogno 2020 madaxweynuhu saddexdaas sano uu ka soo qayb galay qalin jabinta jaamacadda Camuud iyo waliba jaamacadaha kale ee aynu la socono ee Somaliland uu ka qayb galo ee u dambeysay jaamacadda Hargeysa waxa uu ka jeediyaa khudbad inta u badan dadku marka ay daawanayaan u badan dhibaatooyinka waddanka ka jira u badan dhaliil uu u jeedinayo institutionada waddanka oo ay ka mid tahay waxbarashadu maanta khudbadiisa waxa ku jiray qodobo aan aad loo yaabay waxa ku jiray qodob uu jaamacadaha ku canaanay waxa uu lahaa jaamacaduhu waa inay tayeeyaan ama ay tayeeyaan oo tayo u yeelaan tacliinta sare wasaaradda waxbarashadu maxay qabanaysaa marka uu jaamacadaha madaxweynuhu dhaliilayo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare leedahay maxay qabanaysaa madaxweynuhu waxa uu u arkaynaa inuu dhibaatada isaga haysata problemka isaga xukuumaddiisa iyo institutionska uu taliyo uu madaxweynaha u yahay amba shakhsiyadiisa haysta inuu ardayda u jeedinayo waxa uu kaloo sheegay dhibaatooyin badan oo ka mid tahay COVID-19 waxa uu kaloo sheegay dhibaatada ayaxu ku hayo waddanka waxa uu sheegay khilaafaadka dhulka ee ku soo badanaya dalka oo ay dawladdiisu intan ay joogto uu aad u batay waxa uu sheegay madaxweynuhu salaadiinta waddanka oo tirabeel noqday sidii loo maamul lahaa madaxweynaha lagama sugeyn inuu dhibaatooyinka isaga haysta uu ardayda u sheego ardaydu waxay ka rabtaa inuu madaxweynuhu tuso waddanka resource-ka ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa ardayda maanta qalin jabinaysa 16 sano ay soo baranayeen qaar 22 sano ay soo baranayeen qaar 17 sano ay soo baranayeen waxa laga rabaa ardayda ka rabaan madaxweynaha badda dadku ka sugayaan inuu madaxweynuhu dadka jid u tuso sidii uga faa'iideysan lahaa kheyraadka waddanka sidoo dadka ardayda maanta adduunka ugu horeyso ee adduunyadii waxbarashada ka soo baxay ee adduunyadii caalamkii la shaqaysanayay ee dhibaatada badneed ee problemka ahayd ee opportunity-ga lahayd madaxweynaha waxa laga rabay inuu ardayda qalin jabinayso tuso jidka ay wax ku raadsanayaan lagama fadhiin madaxweynuhu inuu ardayda golo ka fuul iyo dhibaato waddanka ka jirta inuu uga sheekeeyo khudbadii sanadkii hore qale oo aad u dhageysanay maan joogin waxa uu ka sheekeynay waddanka inuu amni darada iyo wasaaradda amniga inay ku bixiyaan lacagta ugu badan ardayga soo baxaya maxaa ayax ka khosay maxaa amni ka khosay maxaa ka khosay COVID-19 khilaafaadka dhulka maxaa ka khosay ardaygu imika wuxuu rabaa shaqo abuur buu rabaa madaxweynaha waxa laga rabaa inuu ardayga u sareeyo qaato waxa laga rabaa 10ka arday u sareyso inuu qaato
waxaa laga rabaa inuu ardayga jaamacadda afka ardayda ku hadlaya inuu dhiirigelin uga dhigo ardayda kale uu ku yidhaaho qof walboo jaamacadda ugu sarreeya waan qaadanaya si ardayda dambe sanadka dambe ay u dadaalaan maanta madaxweyne waxaasoo dhan wax alla wuxuu ka sheegay ma jirin problemka iyo dhibaatada waddanka ka jirto isaga inuu xaliyahay oo wixii loo doortay ahayd ayuu sheegay marka xisbi ahaan aad baan uga xunnahay waqtigaasi uu ka khasaaray maanta dhalinyarta waxaan leenahay madaxweyne sidaa isku dhaanoo dib isugu noqo waa sidee xaaladda guud ee deegaanada Somaliland ay maanta ku sugan tahay maxamed horta de maanta nin ka soo maqan waddanka iyo nin waddanka jooga xaaladiisu uu ogyahay maanta waddanka ama dawladda Somaliland 30 sano soo jirtay 30 sano waxay ku soo caanimaaleysay ugu yaraan hadayna aqoonsi haysan inay dadka Somaliland aaminsan ee ku noolay inay broad ku hayeen Somalilandnimada dad dhalinyaro waxa jira adduunyada daafihi kala joogay oo Somalilandnimada qalbiga ku haystay aqoonsi waxay uga baahnayeen buu iska yaraa maanta waxaad arkaysaa in dadkii Somaliland ee dibadda joogay amba waddanka dhexdiisa joogay inay iimaankii Somalilandnimadu uu ka yaraado sababtuna waxa weeyaan dawladda maanta joogta dadkii way nacsiisay dawladnimadii waxay nacsiisay cadaaladii bay nacsiisay maanta meel walba minbar ilaa galbeed Somaliland ilaa dhexda waxa ka soo yeeraya cabashooyin kala duwan maanta xukuumadda hadda 3 sano talada haysa waa 3 sano oo dalka ka khasaaray waa 3 sano oo qabyaaladii biirtay 3 sano shaqalaantii biirtay 3 sano waxa weeyaan dawladnimadii Somaliland hoos u dhacday nabadgelyo Somaliland way haysataa nabadgelyona way haysan jirtay laakiin wixii kale haysan jirtay waxay isku duunaan bay Somaliland haysan jirtay isku duunaantii Somaliland maanta ma jirto kolba cidda madaxtooyada joogto bay Somaliland dhab ka tahay dadka maanta anigoo kale soo xisbi macallin ku jira waxa laga yaabaa in dadku ugu dhaan dawladda dhaliilaysa anu dawladda ma dhaliilayo muwaadin Somaliland aan hay ku hoos dhashay calankiisa waxaan aaminsanahay wixii qaldan inaan sheego haddii maanta hadalkaygan imika iyo hadallo badan oo sheegay dadku waxay u arki doonaan qaar baa oran doona ninkan waa qaran dumis ninku qofku markuu la xijeclo waddanka qabo oo waddankiisii aaminsan iyo wax ka sheega marka xaaladda guud ee waddanku horta waa iska nabadgeliyo laakiin maanta aad baan uga dayrnaynaa muwaadinimadii cadaaladii garsoorkii shaqo la'aantii maanta ninka dhalinyarta jaamacadda maanta xafladan oo kala jooga wuxuu og yahay waxa ka horeeya wuxuu garanayaa in reer hebel wax lagu qaadanayo maanta nin dhalinyaro oo Somaliland jooga uu yaryahay inta joogtaana waa in balwadii la daadegtay oo mustaqbalkooda ka haray waa in noloshii ka dhacay waa in qabyaalad ka shaqeyso meelaha fadhida waa in reer hebel lagu shaqo geeyo ninka kale uu haysto inuu ka sareeyo haysto marka maanta dhalinyarta maadaama nin dhalinyar ahay xisbigana uu qaabilsan dhalinyarta xaaladda dhalinyartana aad ula socdo maanta dhalinyartii Somaliland oo ah mustaqbalkii ubaxii beritool maanta meel alla meel ay mustaqbalkooda hayaan ma jirto waxaan anu u soo jeedinayaa dhalinyarta inay fadhiga ka kacaan inay siyaasadda soo galaan inay iska bedelaan nidaamyadan jira hadda oo heeriyada iska tuuraan marka xaaladda guud waa sidaas walaal gabadha waa maasanta meeshii islaanteena yarata aad baad u maasantay aad kaaga magacayna waqtigaana si fursad aan si aad baad maasantay adiga Soomaali